madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gabaldhicii galabta waxa uu soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. madaxweynaha iyo wafdigiisa waxa uu heliyay madaxweynaha dowladda Axmed Ducaale Geelle Xaaf. kumanaan dadka magaalada Dhuusamareeb oo badnaa dhalinyaro ayaa qaarkood madaxweynaha uga hortagay afaafka hore ee magaalada iyagoo farda ku soo galbiyay kolonyadii galbinaysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxa golaha fulinta dowladda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha iyo wafdigiisa magaalada Dhuusamareeb. waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan nasiib u yeelanay maanta munaasabada qiimaha badan ee aysan u kala harin bulshada qaybaheedii kala gedisnaa inaan ku soo dhaweyno madaxweyne Farmaajo. waxaan leenahay madaxweyne soo dhawaaw, shacabkaagii weeye ku sugayay markii ay u dabaaldegeen madaxtinimadaadii kadib maanta aan kula qaybsanaya fadhiga. Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa maalin taariikhi ah ku tilmaamay maalintan. maanta waa maalin taariikhi ah, waa maqrib aan hubo inuu yahay maqrib karaamaysan. ilaahay ha nooga dhigo maqrib wanaagsan. waxaan maaragtay aad iyo aad mudan madaxweyne, halkaan waa Dhuusamareeb, waa caasimadii, waa arrintii aynu ku taabaynay oo kiiloomitirada badan oo roobka aan u soo soconay inaan balma salaamo. madaxweyne galabtay waan aragnaa Dhuusamareeb caasimadii Galmudug oo runtii aan hubo inay tahay munaasabad aad iyo aad u qaali ah. waxaanaan marnaba filayn, aan marnaba cid soo rogaykata jirin. galabta sida halkaan loogu soo maaragtay naloo soo dhaweeyey, kulligay waa nala soo dhaweeyey. aad iyo aad bay u mahadsantihiin cid allaaliyo ciddii ka qayb qaadatay soo dhaweyntan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bartamaha magaalada kula hadlay bulshada reer Dhuusamareeb. maanta runtii waxay noo tahay maalin taariikhi ah oo farxad weyn leh, sida wanaagsan oo walaaltinimada leh oo diiran oo aad noo soo dhawayseen. waxaan ognahay oo la soconnaa ilaa saakay subaxdii hore ilaa hadda inaad taagan tihiin si aad noo soo dhawaysaan. xaqiiqatan aad iyo aad yaan ugu faraxsannahay. hadal waa noo dambeeyaa, laakiin waxay ka turjumaysaa soo dhowayntan wanaagga badan oo diiran. waxay ka turjumaysaa soomaalinimadeenna, waxay ka turjumaysaa sidaad Soomaali iyo midnimadeeda aad u soo dhawayseen oo dib u heshiisiinta aad uga shaqayseen oo magaaladan aad u nabadayseen yay ka turjumaysaa, iyo sidaad u jeceshihiin madaxdiinna qaranka iyo madaxdiinna Galmudug saa u jeceshihiin. soo dhowayntan taasay ka turjumaysaa. imaanshaha madaxweynaha ee magaalada Dhuusamareeb ayaa la filayaa inuu salka u dhigo dhaqangelinta heshiiskii bishii Diseembar dhex maray ahlu sunna iyo Galmudug, kaasoo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Cali Baashi Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Dhuusamareeb.